sidaan horeyba markii horeba idiin soo qadimay waxaa toddobaadkan aanu barnaamijkeena gebi ahaanba kusoo qaadan doonaa shirka beelaha Khaatumo 2 oo ka socda Taleex Nugaal waxaana shirkaasi uu haatan galay heerkiisii gabagabada shirkaasi ay ka hadleen isimo ayagoo ah beelaha ku abtirsada shirkaasi Khaatumo 2 haddaba shirkaasi waxaa bal marka hore aan idiin soo gudbiyo qaar ka mid ah isimada iyo sidii qabanqaabada shirkaasi loo sameeyay waa kan daawadayaal ku soo dhawaada bayaankan oo ay maanta soo saareen golaha isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka koobnaa 10 qodob ayaa waxa lagu taageeray gobashii uu dhigay Garaad Salebaan Garaad Maxamed iyo gudoonkii goobta shirka Khaatumo 2 lagu qabanayo waxaana ugu horeyn bayaankaasi iyo qodobadii ka soo baxay akhriyay Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed taageerida gogashii uu dhigay Garaad Salebaan Garaad Maxamed iyo guddoonkiisii goobta shirka lagu qabanayo oo ah magaalada Taleex qodobka koowaad qodobka labaad muddada shirku bilaaban doono waa 20 November 2011 qodobka saddexaad ergada ka qayb galaysa shirka tiradoodu wuxuu noqon doontaa 165 xubnood gudaha waa 120 xubnaha dibaduna waa 45 xubnood oo lagu soo xulay doono 3 meelood oo baanta ku qaybsan jiray qodobka afraad in shirka lagu marti qaado 25 xubnood oo marti sharaf ah 20 xubnood waa dadka gudaha 5 xubnoodna waa qurba joogta beesha qodobka shanaad beel walba isimka cuqaasha iyo waxgaradka ayaa soo xuli doona ergada shirka uga soo qayb galaysa qodobka lixaad ergada dibadda waxay ku imaanayaan habka 3 meeloodka waxaana soo xuli doona beel walba qurba joogteeda qodobka toddobaad qarashka shirka sidii horeba looga ballamay waxaa laga sugayaa qurba joogta beesha wixii aan ahayn xoolaha nool qodobka 8aad nabadgelyada shirka waxaa ka mas'uul ah garaadka gogosha dhigay iyo beeshiisa intaas kadib Garaad Salebaan Garaad Maxamuud ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedka dadaalka isimadu ay ugu jiraan sidii uu qabsoomi lahaa shirweynaha Khaatumo 2 asagoo dhanka kalena bulshada reer Taleex uga mahad celiyay diyaar garowga ay ugu jiraan shirka Khaatumo ee looga tashanayo aayaha dadka ku dhaqan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waan idin khalkhal u gelin oo aan la gamcayn oo shirkaas muradal uu noqon lahaa inta horta ujeedadiisu weeye cid gooni wax loo oranayo cid la ambaarayo cid la caayo midna ma jirto waxaanu doonaynaa anagu haddaan isimada nahay iyo dadka waxgaradka oo waa xumi dhibayaan waxaanu leenahay shirka yaan la burburin maayo yaan la gacmayn ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur Garaad Abshir Saalax iyo Boqor Cabdullaahi Axmed Cali ayaa iyaguna siyaabo kooban uga hadlay u diyaar garowga shirweynaha Khaatumo 2 shirkaas ismaahan anagu waa taageerina runtii 100% baan taageerina waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay inoo fududeeyo markii Khaatumo la qabtana waa xoojiye oo waa la taageeray oo qoraal ah markana meeshii gogosha la dhigay waa garaadku ku baaqay ama ku dhawaaqay iyo beeshu baa lagu wada gowracan yahay ujeedadii shirka iyo kulanka iyaga kan waxaa sheegay garaadka inaanu annagu ku taageerno garaadku gogosha u dhigay taageernana shirkaas ayaa kulankani uu ahaa wuxuuna ku nuxuraysnaa waraaqdii uu garaadku u akhriyay shirkani oo loo balansan yahay inuu ka qabsamo degmada Taleex ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan wafuud iyo ergooyin boqolaal gaaraysa kuwaasi oo ka imaanaya dalka gudihiisa iyo dhammaan badaafaha dunida daawadayaal wali waxay noo socdaa barnaamijkii aanu toddobaadkan ka soo qabanay Khaatumo 2 oo asoo ka socda Taleex waxaa haatan idiin soo gudbinayaa
علي قريف كلام وسوى رئيس وزراء هو دولتي TFG عرض وأسوي كمدة سياسيين تا شركة سيكقيم كلي ورنتي أسوي رأيو وقيمة بدل كاسي كسوجي إسلام كاسينا فهمسينه بل وحيابها نقول لي هاي شركة سي وكان داوديال كسودوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan uga mahadnaqo reer Taleex oo dadka intan tirada la eg ee halka ugu soo ururay inay danahooda ka bogtaan oo ka doodaan oo ka ballamaan sida fiican waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro qoysaskii dhiiladu ku dhacday ee intii shirkaba la joogay ama loo ballansanaa geeridu ku timi tacsi yaan loo diraynaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo kuwii dhintayna ilaahay dembigooda inuu dhaafo waxaan rabaa inaan salaamo garaadada ama ismada reerka waqti adag oo aanina soo marin oo marmarka qaarkood lagu mataalo waagii magaaladan Taleex ingiriisku uu bamgareeyey meeshii aynu maraynay ee ahayd ummadii inay kala firdhay oo wajah wareeray ismada iyo xuqaashu door runtii aad u ballaaran baa ku soo baxsaday waa isbaliilaa laakiin waxaan rabaa inaan ku mahadiyo doorka ay ka soo baxeen waxaan la hubaa dhulbahanta hadduu tashado oo maanta wada joogo doorkooda xaqa ah inay yeelan doonaan laakiin waxaa noo raacsanaan doonta iyoka iyo ciddii kale ee mas-uuliyada ay saaran tahay in la xisaabtamo wixii maanta ka dambeeya kuwii hawshooda ka soo baxana ay ku ammaanan yihiin kuwii aan ka soo bixinna deestaa loo ogaado waxaan rabaa iyana inaan halkan bogaadi uga soo jeediyo gabdhaha reerka ee guraya la ogaayo haad bay noqotay gabdhuhu ama waddanka gudihiisa ama dibaddiisaba door raggu laga filayay inay yeeshaan iyo iyagu ka soo baxeen waxaanu leenahay walaalayaal iyo hooyooyin iyo ayooyin haddiiba cidayeeyay ugu beeganay ma jirto waa mahadsantihiin waana taariikhdayna gelaysaa doorka gabdhaha reerku ay ka soo baxeen waxaan rabaa hadal dheer uma kicin inaan dhowr qodob ka idhaaho maxaa loogu baahday inaynu shiro haddii qofka cudur hayo oo uu dhakhtar u tago intuusan dawo u qorin wuu warsadaa xagee lagaa hayaa sidee lagu hayaa isagoo aalaad isticmaalaya isaga iyo kuwa la shaqeeyaaba iyo waxay ka bogtaan qofka xanuunka haya waxay ka bogtaan dawo la siiyo waxay ka bogtaan dawadaas lagu eegayo qofka bal sida uu ugu caafimaadayo muddo ay iyagu qoondeeyaan waxaa hubanti ah in qofka aan ku mitaalaya inuu xanuunsaday in beesheenu
ay xanuunkaas bukaanka ay tahay bukaankaasu inuu hayo waxaynuna halka isugu nimi bukaanka inaynu isla fiirino oo maxaa ina haya oo xaggee dhibaatadu ka socota oo aynu ka wada tashanno maxaa dawaynoo ah gidigeenna waa wada buknaa gidigeenna innakaa dhakhtarayso ah hawsha lama kala leh cidina ma leh cidina ma xantoobsan karto cidna loo dayn maayo wadatashiga aynu leenahay iyo wixii rag ama dad ka dhaxeeya maanta geedkan birdaha waa hoostiisa in la dhigo cid leh oo ku tala baxaysaa oo laga qaadanayaa ma jirto waddankan tareenku ma soo gaadhin waxaase jirta haddii tareenkaba warkiisa aan dhaafe aynu goosannay inaynu kobtan abaarta ah ee dulinka badan inaynu ka guurro oo sahan aynu dirsanno waxa ballana in hayaankaa aynu gelayno hayaankaa aynu rabno inaynu ku dhaqaaqno hayaankaa inaan loo kala hadhin ciddii iyadu ka hadhaysa ciddii iyadu hayaankaa ka hadhaysa soomaali maxay oga jirtay nin duulaa danti kaa og ciddii hayaankaa ka hadhaysa dee iyagay u taal ummadanu cidina ma kicin iyadaa danteedu iyadaa ka dhiidhiyaysa iyadaa rabta sidan inay isu dhaanto iyadaa rabta iyadoo aan loo kala nin qofna uusan qofar dheerayn oo la siman yahay oo doondu inoo wada furan tahay in wixii naga dhaxeeya badkaana la dhigo lagu wada dhiirado rag iyo dumar muxuu ahaa dhalinyaro iyo odayaal iyo waayeel waxaa markaa dantu ay noqotay oo gurubka aad maqlaysaan ee guddida fulinta ah ama hadda af ingiriisi baaba loo bartay J6 iyo guddiyo ka farcamay shirkii London lagu qabtay guddiyadaasu waxay waayadanba soo waday oo soo daadahaynaysay sidii ballanku ahaa shir in waddanka gudihiisa lagu qabto inkastoo xoolaha markii hore laysku yara maan dhaafay ismadu go-aan ay ka midaysan yihiin idinka soo saareen taageeradaas in shirka aynu qabsanno niman guddiga oo 15 yaa oo qurbajooga yaa yimid dhulka muddo 5 biloodana dhulka ku wareegayay oo guddi taariikhdayna soo martay hawlaha ay qabatay aan cid qabatay jirin oo tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo baadiyahaasba 5 bilood ku wareegayay oo meel walba tegay waxa ay noo soo gudbiyeen intii dibadda jirtayna u soo gudbiyeen in dhulmahante arrintaa shirka iyo in la wada tashado iyo in laga gudbo ismaandhaafka waxaa leeyahay madhaweyn 15 lama wada yaqaane hadday fadlan istaagi karaan oo la arko bal inay istaagaan 15kaas
waxaan rabnaa inaan giddigeyanba ku bogaadino oo ku ammaano oo u ogaano hawsha aynoo soo qabteen. haddii hawl la qabanayo kolley oo hawla ugugaan hawa inoo soo marin la qabanayo waa la isdhaldhaliyaa oo cidna ma odhan malaa'ig baa la soo diray dhaliil waa jirayaa. waxaase ay runtii hawsha waa ka soo baxeen waana ku ammaanan yihiin intii la shaqaysay ee waddanka joogtay ee u badan oqaasha iyo waxgaradka iyo culimaadudiinka iyo haweenka iyo dhallinyarada intuba waa ku ammaanan yihiin. waana mudan tahay gabadhii la oran jiray inay shirkeeda ka mashxarado waxbaa halkaa ka hadlaysan inay maanta fasax baan u haysanahay aynu isku bogaadino in hawshaasi inoo suurtooday iyaguna inoo suurtageliya. maraba hadalka inaan ku dheeraado ergadaa wareegaysay iyo shirkaa khaatumeelana ka dhacay iyo kanaynu wada joognaa waxaynu abbaaraynaa waa midnimo oo ka xumbaynaya oo qorisita wax xukumi karaa runtii ma jiro. cabsi dowladnimo looga baqaana ma taalo, cabsi ilaahay lagaga baqaana ma muuqato. waxaynu maanta u joognaa oo halka u joognaa oo ka wada hadlaynaa nabadda inakaa u baahan. inagu hanuuninaysaana ma jirto. qaramada midoobay iyo adduun weynahaasu nagu hanuunin maayo. bulsho weyn Soomaaliyeed oo nabad la'aani ay 20 sano haysay oo qoliyo dhinacyada inaga xiga la leeyahay ilaa heer waxbay arrimaha ka qabteen. annaku kuwii qabsadayna Allah ha u barakeeyo, laakiin marti iyo ka uga noqon mayno nabadda aanu rabno.